ومن دلك dadaalkii uu galay ra'iisul wasaare Khayre sidii loo dhameyn lahaa colaadda deegaanka heshiiska nabad ay kala seexdeen bulshada ku nool deegaanada Hurshe iyo Xeraale oo ay u dhaxaysay colaad dhiig badan ku daatay muddo 3 76 qof ayaa ku geeriyooday dagaalkan oo u dhaxeeyay dad ehel iyo hal qoys ah isla markaana kala geeyay qoysas badan iyo walaalo waxaana heshiiskani ay kala seexdeen rajo farxad u gelinaya dhammaan dadka deegaanka ee samaha jecel gaar ahaan hooyooyin ay wiilashoodii laba garab kala noqdeen wiilashiga gabdhaha jooga caawa Xeraale farxaday ku seexanayaan kuwa qurbaha jooga farxaday ku seexanayaan odayaasha halkan jooga farxaday ku seexanayaan laakiin taariikhdan caawa baalka dahabka ka gashay mustaqbalkeena inaad ilaalisaan la idinka rabaa si aad u ilaalisaanna waa waxa aad kala tabanaysaan inaad iska shaafisaan dawladdu waa idin garab istaagaysaa waa idin la shaqaynaynaa marka ugu dambaysa laakiin mas'uuliyadda ugu weyn oo qalbiga la isu furaayo la isu tanaasulayo la is jeclaanayo la is walaashanayo la aqbalayo inay midnimadu xoog tahay kala qoqobnaantuna xoog tahay idinka la idinka rabaa inaad samaysaan heshiiskan ayaa waxyaabaha ugu muhiimsan waxa kamid ah in la isku celiyo hantida maguurtada ah sida guryaha la iska haysto ee ku kala yaala Xeraale iyo Hurshe isla markaana la abuuro jawi nabdoon oo xoojinaya walaaltinimada iyo wada noolaanshaha dadka ehelka ah waxaana heshiiskan warbaahinta u akhriyay Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo gudoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta Galmudug hantida maguurtada ah in wixii hanti maguurta ah oo ka maqan bah ina afrax oo ku yaala Xeraale ama meel kasta oo deegaanka kamid ah loo celiyo sidoo kale saddexda jufo ee kala ah Muuse Fiqi Umar Fiqi Bah Maxamuud ee Xeraale ku hartay in wixii hanti maguurta ah oo ku maqan Hurshe iyo meel kasta oo deegaanka kamid ah loo celiyo taas waxa way hanti celin hantida aan maguurtada ahayn in wixii hanti guurtada ah saas way hanti guurtada ah ee la kala haysto la geliyo wada hadal marka la cadeeyana la isku celiyo odayaasha labada dhinac ayaa heshiiskani soo dhaweeyay isla markaana ballan qaaday inay dhaqan gelinayaan waxaan ugu bishaareynayaa oo uga farxinayaa haddaan nahay beesha reer Fiqi Maxamed oo Xeraale waa heshin maanta waxay noo tahay annaga farxad aad u weyn marka koobaad farxadaas aan qabno ilaahay ayaan uga xamdinaynaa marka labaadna waxaan iyadana uga xamdinaynaa ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo dawladda federaalka mudane ra'iisul wasaare dadaalkaagii damacaagii iyo isku daydaagii wuu mira dhalay intii ku dhibtootay intii xalkan intii raadinayeen garaafana kala gaartay intii rafad iyo jirooyin badan aan isla marnay oo ummadda Soomaaliyeed ee xilka qaranka loo dhiibay ee rafaadka faraha badan la ka soo maray ahna sida walaalihiin aan isku cafinay intayadii dhibka weyn kala gaaray ayagana inaan is cafino oo wanaag iyo khayr ay noogu dhamaato oo shaqada si kalsooni ay noogu socoto ayaan ka rajaynayaa wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta Cabdi Maxamed Sabriye iyo xildhibaan Sakariye xildhibaan Duniyo oo iyaguna ka hadlay madasha ayaa ra'iisul wasaaraha uga mahad celiyay heshiiskan isla markaana ku amaanay doorkiisa uu qaatay xala waxa moodaysa markaa hadlaysay labada dhinac harub aan caana ku rabo in la iigu shubo ninkii hadalka eray wanaagsan yiraahdo inuu caana iigu shubaa moodaa aad iyo aad qalbigaygu ugu qaboobay erayada xala la siiro waxaan marka koobaad u mahad celinayaa doorka weyn oo uu ka qaatay ra'iisul wasaaraha qaranka in uu noo hirgalo heshiiskan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa heshiiska meesha ka dhacay dadka muddo ka soo shaqeeyanahay laakiin ilaahay baa mahad u sugnaatay caawa waxa ku guuleystay Xasan Cali Khayre xukuumadda nabad iyo nolol dadkaas maanta in guryahooda lagu celiyo in heshiis loo kala saxiyo in dibadejin loo sameeyo dhibaato xun baa soo martay barakac baa ku dhacay qax baa ku dhacay
samafal bay u baahan yihiin marka heshiiska aad iyo aad baan u soo dhaweynaa. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay qaadayso doorka kaga aadan hirgelinta qodobadan lagu heshiiyay nabadeed si loo xoojiyo wada noolaanshaha reer Xeraale iyo Hursho oo ah dad walaalo ah. halkan caawa halkan marka aad ku gaarteen maadan ugu heelina Xeraale maadan ugu heelina mustaqbalka caruurtiina maadan ugu heelina dan gaar ah laakiin waxaad samayseen taariikh cusub oo iftiimaysa oo baal dahaba ka geli doonta taariikhda dalka Soomaaliyeed hadii Ilaahay dawladnimada la idin sheegayo waa intaas waa inaan ku dhiirano inaan aqbalno dhibka nagu dhacay qalbiga u furno xalka isu dul qaadano raadino wax walba oo aan dalkeena ku horumarin karno. Nasra Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Dhuusamareeb.